waxaan rabaa inaan si gaar ah u xusoon soo dhaweeyo jabhadda oo nalab halgamayaashoodii oo maanta inala jooga oo walaaladeyna haddaan rabo taariikhdeedana dib idiin fahansiiyo aniga shakhsiyan afkaaro fara badan oo ninka garab taagan Xuseen Nuur baa la yiraahdaa waxa weeye guddiga fulinta oo nafku ku jira afkaaro fara badan ku kala duwanayn haddana ku kala duwanaa jira oo ciidda ka badan oo aan xilliyada gaarkood marka TV-yada iyo dooduhu yimaadaan aan sheegi doono laakiin fikir kasta uu qabo Oromo maanta iyadoo oo 12 urur ah iyo wadankii joogta qaar baa muslimiin qaar baa qaala qaar baa wax kala sheeganaya iyagoo fikir ku kala duwan waxay ku heshiiyeen inagoo qoomiyada xaqeen aan u midoowna ku wada hadallo ma inaynu isdillo oo la yiraahdo oo jijiga ma soo gali karto waa reer hebele la yiraahdo yaa horumar noqonaysa maanta oo iyana yiraahdaan waa yahay oo iyana yiraahdaan reer qabri bayax ma soo gaari karaan dhagax buur iyo ararso oo markii dadkii walaalaha alla kala qodqobo loo kala sameeyo ma wixii afkaar siyaasadeed khaldan tartan siyaasadeed baa lagu kala baxaya laakiin wixii dad Soomaalinimo magaalo kasta oo gobolka ku taala nin walba oo Soomaali uu tagi kara ganacsi uu ka samaysan kara uu ku noolan kara arrinta aan rabo inaad kala hadlo waxa weeye arrinta Soomaalinimada istusnimo iyo dadku ha maqlaan naga maaha waxay naga tahay waxa weeye waxaan jiri karnaa dhammaanteen haddaan Soomaali noqono haddaan akhlaaqdeennii Soomaalinimo la nimaadno haddaan astaanteennii la nimaadno intaasaan ku jiri karnaa waxaa magaalada Jijige ee caasimadda deegaanka Soomaalida soo gaaray wafti ka socda jabhadda ONLF oo hogaaminaya afhayeenka rasmiga ah ee jabhadda Mudane Cabdiqaadir Xasan Hiirmooga Cadaani waxaana garoonka diyaaradaha ee Garaadwilwaal ku soo dhaweeyay taageerayaasha jabhadda ee ku sugan Jijige oo aan u kala hadlay soo dhaweynta waftiga ONLF iyo waliba mas'uuliyiin ka socota heer deegaan waxaan soconay salaamida dalkanaga iyo dadkanaga iyo fidinta heshiisyadii isafgaradka ahaa iyo mideynta dadka Soomaaliyeed iyo mideynta jabhadda maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo kala daadsanaa inaan dib u midoowno oo wadanaheena ka tashano oo shacabka Soomaaliyeed mideyno oo fariinta jabhadda gaarsiino oo nabad gaarsiino oo iskaashi gaarsiino hadafkaygu saas ah dhankoodana waxaan dareenkooda la wadaagnay qaar ka mid ah taageerayaasha jabhadda ee ku sugan caasimadda deegaanka ee soo dhaweeyay wafdigan ONLF oo ay ka mid ahayd gabadh la xaadlo oo taageero u qabta ONLF iyadoo gaadh curyaan ku socota taraag dheer u soo gashay marka dameesh waxay soo gelisay artaan farxad iyo maxaan ku